war Soomaalida waliba Etoobiyaanka ama aaminsan Mareykanku inuu faa'iido keenayo raaba mahmahay wuxuu yiri hadii biyo waxtar leeyihiin boodada ka muuqan lahayn laana aniga ku dhex jira 24 saac hadii Etoobiyaan iyo gumaysi ay waxtar leeyihiin waxa laga arki lahaa Soomaali galbeed iyo NFD in arinta taayada Soomaaliya in lagu xukumay adduunka ku xukumay danteena ha garanina anagoo inii garanayno hadad garataan oo ku leeynayna taas inay tahay maanta laana sabab markay baabaa'isay cid u hadlaysa male marka damcayna dadkii baabina iska qabtaana waatan wax ayaga loogu daray karba دستور أيو إلهي دجية قرآن كوكو دجية محمد صلى الله عليه وسلم عليه دستور كاس أيو حالة سمي صودرا سماعي هذا أكتر مقدشة لح بلاد أيو شقينا إثيوبيا تعمير كل مادة do you believe إنه دستور كاس وقلدنا إيمان وحنقولك اللون كله ودقيس شيء أوه هي الدين سوون نقطة دستور ما هو ولا كتاب كتاب واحد أبيك إلهي كتاب حليمة laba jeer bad magacayga qaladeen magacayga waa Aasha Aftar Qaasim dawladda ma difaacayo waxaan difaacayaa dastuurka Ethiopia iyo kuwa hadda u sacabilay Ethiopia qabiil dartiis weey kuwa diidan waxay u dhowdahay inkastoo ay ku gaban karaan hadda qowmiyanimo darteed ama diin darteed aniguna waxaan labadoodaba waxa ka sii xoog badan qabiil problem soo ku jira macnaha waxaan u fahmay dadka reer Muqdisho ee deegaanka degan inay yihiin dadka problem ku jiraan waxa soo baxday marka kadib markii la ogaado warlooradii iyo problemada inay xamar yihiin dadku way iskilin gareeyeen dan marka waxa soo baxay haday iskilin gareeyeen hadana al-qaacida lagu level gareeyay Soomaaliya mushkilada ka taagan inaga Soomaalida abaabo inaga u baylihinay hadeerna hadaynan inagu doonin wara midaan anigu uma jeedo sansaankeed laakiin inta inagu aynu sida hadda meeshan aynu fadhino ra'yigeenu u kala jeedo inta aynu nahay rajo ma jeedaan sabab keenaysa ma jira mudane Cabdirasaaq in Soomaalidu sida u kala qaybsanto ama cudud kale oo ku jirta maxaa Soomaalidu dad walaalo ahaan jireen oo Soomaali isku maxaa sidan ka dhigay waa symbol way aniga aragtidayda qabiil way waa qabiil marka hadda si balaariso hadaan si balaariyo waa qabiil way waxay la kala Ethiopia iyo kuwa hadda u sacabilay Ethiopia qabiil dartiis weey kuwa diidan waxay u dhowdahay inkastoo ay ku gaban karaan hadda qowmiyanimo darteed ama diin darteed aniguna waxaan labadoodaba waxa ka sii xoog badan qabiil horta qaybta ugu weyn Soomaali ma saarayo maxaa dhacay meesha maanta arinta Soomaaliya markaan dib ugu noqono ilaa 60meeyadii maalin banin baad dan ugu jira oo u soo galahay ama dan qabiil ha u soo galo ama dan gaar ha u soo galo ilaa maalinkaas laga bilaabo dad baa ku tirtamahayay siyaasaddaas oo dana gaar kala lahaa agar Cabdirasaaq ma uu sheegine qabiilada ugu daran ee Soomaaliya ilaa maalinkaas ilaa ay hadda rabshada wadana waa laba qabiil Soomaali way ka badan tahay laba qabiil mushkilada oo dhan ee Soomaaliya haysata laba qabiil ma dhaafsiisna qabiil baa isku haysata siyaasadda Soomaaliya Fatima Abdulsalam oo Maxamuud xogaa yaro comment sahan rabaa inaan dhigto waa isla ognahay qasaaraha iyo dhibaatada Soomaalidu ka bilowday oo totaal isku ma hayo laakiin xalki sidii lagu heli lahaa inaan ka hadalno faa'iidaha qoon kulay rajada inaan dhigin faa'iidaha qoon xalkuna kitaabka ku jira marka lagu soo noqon leedahay magacaaga adoo barnay waxaan dhahay Jamiil Cabdullaahi Xasan Professor Ahmed Ismaaciil Samatar rabi inaan weydiiyo su'aal oo ah waa aragnay sida uu hadda professorka sheegay wuxuu dhahay interestiga oo United States siyaasadiisa iyo tan oo Ethiopia labadooda combine Soomaaliya hadda problemka ugu weyn oo ma arkino dhibaatada hadda taalo keentay so waa ognahay hadda maanta dawlad anaga aan shinsanayno ama luqad adduunka uu ku hadlo ama xadaarada maanta adduunka ka jirto la socon karto meesha kuma heeno dadkii kale oo wadaadada ahaa wadanka difaacayna ayagan argagixisaa lagu leeyay garay marka ma jiraan aqoon-yahanada Soomaaliyeed waxa aragnaa always labada professor ama BBC ama meel kasta ha joogto
misku imaan karaan oo adduunka luqadda ay ku hadlayaan maanta waa maalinka waxbarasho iyo cilmiga maskaxdaada maalinka aad dadkaaga ku badbaadin lahayd la joogto marka waxa aniga aan weydiin lahaa aawa aqoon-yahanadii Soomaaliyeed oo albaab walba qaraaci lahaa aqoon-yahanadeena iyo xadaaradeena Ethiopia isbaaro u dhigatay marka professor ka wadiinaysa ya professorka waan isku daynay horta dadka Soomaalida lagu sheegay intellectuals ka tiradoodu waa wax yar waana wax wada khafiif ah oo kartidaydu aad bay u gaaban tahay laakiin waanu isku daynay albaabka garaacda 20 sanadood baan garaacnay albaabkan anigu markaan ka baxay jaamacadda dissertation kaygii 1983 ya waxa laga joogaa waxa weeye Soomaaliya 25 sanadood 1983 dardaar waan soo eegay wadankii buug baan ka qoray waxaan khasaaraha halka ka soo socda intay goortay hadaan wax laga qaban burburka Soomaali gaara yani qiyaamihii baa ay u dhawaan doontaa this is 1983 ya Soomaaliya akhriyade soo dhamadba marka waxay qofka intellectualka lagu sheegayo inuu wax garanayo hadduu dhab yahay ama haday gabadhu dhab tahay wali jiraan gabdho Soomaaliyeed imika intellectuals waxa weeye yaa ka dambeeyade dadka ka dambeeya yihiin waa hadashay maalinta wajir halka TV-ga ka hadlaanu channel 2 halkan yaa ka dambeeya way soo dagamis umad ka dambaysa amba waxaad akhrisaa waxaad qorto qoraysa amba ku dhageysanaysaa walaal ma jirto marka hadii aanay cid ka dambaysa aanay jirin de waxa tahay wanaadna mid Soomaaliya oo qaawan oo waxoogaa digriye bustalaakiin oo iska shaqaysta laakiin qaawan dadka Mareykanka iyo dadka kale la hadlaysana qiimo xaqooga caynkaas ku mari waa inay baroosin ummadi waa inay ka dambaysa ummad ka dambaysana ma jirto waa tahay professor maqaalo oo af Ingiriis aan qof ficilna foor qoray waqti waasodeen يعني عوام وحول where were you intellectuals markii burburkaan dhacay وقرأت marka Axmed anigu waa ogahay inuu runtiis dadaal badan buu sameeyay isaga dadka loo amadnay laakiin haddana waxaan leeyahay weli eedda weyn dadka wadanka wax u bartay oo aqoonyahan aniga ayaga ay xiriir la'aantooda weeye waxa Soomaali baylay waxaana keenay iyaga inay muwaafaqan la'aantooda qabiil weyn marka halkan jooga Soomaalida maxaynu ka qaban karaa siyaasadda Mareykanka la bedelo maxay tahay sida meenta inuu ku yeelan karo Soomaalida halkan joogta ay ku yeelan karto siyaasadda Mareykanka waxay la tahay siyaasadda Mareykanka annaga inta joogna ma bedeli karno yani waxaan ka wadaa ma muujin karno sida aan u jecelnahay ama diyaar u nahay in wadankii uu ama nabad noqdo inteena nabad ma qalin karno laakiin wadanka gudahiisa ayaa adduunka tusi kara in ay nabad jirto markaan ka sameeyno gudaha nabad wax u eg aanu aragno ayay siyaasadda Mareykanka way bedelmaysaa laakiin dadka halkan jooga waxa weeye congress-kooda iyo maarta senator-kooda iyo mayor-kooda Soomaali badan halkan degan miyayna saameyn ku yeelan karin siyaasadda Mareykanka hadda waxaan anigu senator-kayga maanta Coleman waa ninka ugu wanaagsan ee arrimaha Soomaaliya ka hadla galana waxaan anigu la hortagayo oo dhihi kara aaway yani umadaydii isdilkii way iska daysay hal danbay wadataa waxaan hor dhigi kara ma hayo ilaa ay Soomaali gudaha ay ka hagaagto dadku way isla wada socdaan adduunku isku wada xiran yahay way is arkaan ilaa nabadii ay dhacdo cid ku aaminaysa oo ukumeheeda meesha dhigaysa ma jirto marka waa inaad tabilowna Mudane Cabdisaad ashaas anigu ayaan xalaaseed waxaan xiriir la yeeshay dadka Congress-ka Mareykanka ku jira oo Minnesota oo magacaabay qof laba la xiriir mid walba wuxuu yiri annaga موقف ما قاعدين كرنا محاجر إذن كالصومالي هذا قيبسر يا حدي عن ربنا نام بوسيشن قاعدنا وما بشوف عليه لما نسوت فنشوفه بيقول تسك الصومالي ذا عد قدان ربا مرة بأنا أقول ريتيشن أنا سوسة بيجو حدي عد ميدا يسنو الصومالي نو يمادو دولة دا administration كحكومة خارجة لكن الصومالي ذو قيبسر تاعي حدي واحد هذا عدي شاكتو kuwa kale ma qabaan biyo marka keebaan qaataa biyo marka waa qaybta Soomaalida baa lu kula baa ku hadii la rabo Soomaali in la dhiso Soomaali waa inay midowda marka taa wax ma laga qaban karaya anigu uma jeedo si looga qaban uma jeedo maxaa jira fiksad waxayna ka xoog badan oo diin ka xoog badan oo qoomiyo ka xoog badan yaa ilaahay soo qabiil weyn hore waxa jirtay ama ka baxsanaatay waraaqada ugu qortay ra'iisul wasaare Mala Zanaawi warqad baa loo qoray mid kale ma ku celisay warqad baan qoray mid kale gabadhu hadda arrinta ay sheegtay
warqad baan qoro website laga helayaa markii dawladda bilowgeeda la waday ana iri hawiye iyo daarood ha ka fariisteen dawladdaas madaxnimadeeda baarlamaanka baya president iyo prime minister iyo president of the parliament waa inay midna noqonin zanaa uma ku celisay Ethiopia prime minister keeda waraaq kale waraaqda ku celiya waan ku celiya midna igo soo joogay waddanka gudihiisa un maahay halkan uu yaala Cabdirasaaq iyo Caasho labadooduba way saxsan yihiin habaarkayna haysta ya meel walba uu yaala ma alla meeshii ay Soomaali joogto 20 qofna ha toqotay maxaa tafaraaruqa iyo kala daadsigaas meel walba habaarkaas uu yaala sidii loo daweyn lahaa wayda arinta the question of the century for the Somalis is how to overcome that problem. Anigu soo waxaan leeyahay arintan qabiilka Cabdirasaaq oo ku sheegay anigu ma aaminsani inay diinta ka quwad weyn tahay